السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي كسل وهذا channel كايك فلوجز. maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay mahadnaqayo walaalaha halkan iga xiran iyo sidoo kale talo yar oo aan doonayo inaan u soo jeediyo dadka daawada iyo dadka kale igu soo biiri doona haddii Ilaahay ka dhigo insha Allah. maanta waxaan joogaa hudheelka Mansoor baan joogaa, runtii aad iyo aad u qurux badan, view aad iyo aad fiican leh. astaantaar ayuu hoteelka Mansoor caan ku yahay, qof kasta oo Mansoor yimaada uu garanaya. Halkan wuxuu ku saabsanaanayaa sida aan idin sheegay talo aan u soo jeedinayo dadka ay daawada iyo sidoo kale mahadnaqayo muuqaalkana ku soo dhawaada. galabta halkan uma iman inaan vlog idin soo duubo, laakiin maadaama aan gaadhay 10,000 oo subscribers oo aan YouTube-kan in muddo soo wadnay aynu wada joognay, waxaan jeclaaday inaan galabta aan idin mahadnaqo, aan idinka mahadnaqo sida quruxda badan ee aad channelkayga aad u daawanayseen uga xidhnaydeen intaasoo dhan. weli idima mahadnaqin, laakiin galabta waxaan jeclaaday inaan idin mahadnaqo. waxaan jeclaan lahaa inaan mid aan idin salaamo, laakiin ma garanayo meeshaad kala joogtaan. in badan oo ka mid ah dadkay daawada ee halkan igaga xidhan way la soo xidhiidhaan, si toos ah ayaan wada hadalnaa. taasna aad iyo aad baan u faraxsanahay. sababta aan channelkan u sameeyey iyo hiigsiga aan hiigsanayo iyo waxyaalaha aan doonayo inaan soo kordhiyo iyo inaan idinka idinla wadaago talo ayaan jeclaystay galabta. ujeedadan muuqaalkan ama channelkan aan u sameynayo ama muuqaalada u soo duubayaa marka koobaad waxa weeye in aan soo bandhigo waxyaalo fara badan oo wadankayga ku saabsan inaan soo bandhigo ayaan jeclaaday. waayo waxaa jira dad wadanka muddo dheer ka maqnaa oo meel ay wax marayaan aan war u hayn, 20 sano 30 sano 10 sano dalkan ka maqnaa, isla markaana aan garanayn meel la isla marayo iyo xaaladdu halka ay marayso. dadka qaar oo ila yaabaan waxay ku dhaxaan waxaad soo duubaysaa malayacniga. runtii iyagu malayacni ayay u arkaan, waayo waxa laga yaabaa laamiyadan iyo wadooyinkan aan soo duubayno iyo mehradaan aan soo duubayno inay maalin walba ay ka soo dhex kacaan, aanay jawga bedelin, meel kale aadin, ku caajisaan, isla markaana ay la yaaban yihiin inaan anigu muuqaal ka duubayo oo aan dad la wadaagayo. runtii waxaa jira dad ay macno u samaynayso, dad jeclaan lahaa inay mar qura ay Somaliland iyo meesha magaalada boodhka ee laga tahriibayo laga sii yaacaya inay mar uun ku soo noqdaan oo ay nabad qab ku yimaadaan jeclaan lahaa ayaa jira. taas ayaan markaa jeclaystay inaan dadka aan la wadaago magaalada iyo waxyaalaha bilicda wadanka iyo isbedelka inaan la wadaago, sidoo kale waxyaalaha faa'iidada leh ee wadankan ka jira ama fursadaha ka jira inaan la wadaagona waan jeclaystay. waxaan kaloo aan ujeedooyinkan u sameeyey YouTube-kan ka mid ah inaan noloshayda aan isbedel dareemo oo aan helo waxaan leeyahay, dhaqaalena aan ka helo haba yaraadee. waa waxyaalo ujeedooyinka aan u sameeyey ay ka mid tahay ummadda furi karayo. anigu runtii shakhsiyan haddaan iska hadlo, markii hore aan YouTube-kan bilaabayey waan isweydiinayey inuu soconayo inaan soconaynin, waxyaalo fara badan, su'aalo fara badan baan isweydiinayey. way jirtay mar aan iskaga hadhay oo channelkii ii socon waayey, isla markaana aan faraha ka qaaday, aan iskaba daayayba, aan joojiyey. muddo ka bacdi ayaan haddana aan ku soo laabtay. sababtaan ugu soo laabtayna dib ayaan ka sheegi doonaa. marka hore waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsantihiin, alfa mabruuq dhammaantiin. insha Allah muuqaalo kale oo qurux badan ayaan idin soo duubi doonaa, hadday vlog noqoto, hadday barnaamijyo kale oo noqoto, wax kasta aan is leeyahay bulshada faa'iido ayuu leeyahay ayaan idin soo duubi doonaa. marka koobaad aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa. sidoo kale maadaama uu channelkayga uu isbedel sameynayo oo korayo, dad fara badan igu soo xidhmayaan, waxaan isku dayay inaan muuqaaladayda aan wax ka bedelo. marka kaamiradan GoPro 10 ayaan dalbaday oo aan jeclaystay inaan muuqaalo qurux badan ku soo duubo. in muddo baan sugay, ilaa bil baan sugay, alxamdulillah imika way timi. 10,000 subscribe ayaynu dabaaldegaynaa. sidoo kale kaamiradiina way inoo timi oo waan helay. aad iyo aad baan kun jeer aan idinka mahadnaqayaa sida fiican ee mar walba aad muuqaaladeeda u daawataan, aad ugu xidhantihiin. qodobka labaad haddii aan u gudbo, qodobka labaad waxaan jeclaystay inaan dhalinyarada halkan iga daawada iyo kuwa kale igu soo biiri doonaba inaan talo yar aan siiyo oo aan la taliyo. sababtan talada aan u siinayo, maadaama aan ahay qof dhalinyarada ka mid ah, waaqaca jooga, waxa ka jira la socda, sidaynu wada jecelahay dhammaanteen aynu ku wada hamino inaynu kambaniyo u shaqayno, inaynu dhexdaas ka xidhno, inaynu inagoo xaragoonayna aynu shaqayn tagno shirkadaha waaweyn ee dalka ka jira ama xafiisyada dowladda aynu ka shaqayno aynu wada jecelahay.
runtii marka qofka dhalinyarada uu jaamacadda uu soo dhameeyo waqti fara badan ayaa kaga luma intuu shaqo raadinayo ee uu suuqa uu ku wareegayo. aniga taasi way igu dhacday markaan jaamacadda dhameeyay shaqo raadis baan bilaabay, CV-aan qoray, waan wareegay laakiin shaqo maan helin. markaa waxaan bilaabay maadaama waqti aan hayo inaan YouTube aan bilaabo. runtii YouTube-ka macno badan oo ujeedooyinka magaranaysaa YouTube la soo galo wax badan kama fahansanayn, siduu shaqeeyo wax badan kama garanayn. markaa waxay igu dhacday in marar fara badan aan ka niyad jabay oo wixii ay socon waayeen, kabacdina gebi ahaanba aan iska joojiyey, aan shaqo bilaabay. markii aan shaqada bilaabay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaa, laakiin in muddo kabacdi xaqiiqada waxaan ogaaday markii aan shaqada aan u guda galay ayaan ogaaday xaqiiqada shaqada dhex taalla iyo in dad loo shaqeeyo dhibaatada ay leedahay. markaas ayaan go'aansaday inaan mar labaad aan YouTube labaad samaysto oo aan dib u bilaabo YouTube-ka, isla markaana aan juhdi geliyo. kabacdi waan ka raystay alxamdulillaah, isbeddel fara badan ayaan dareemay, xorriyad baan dareemay. markaa talada aan siinayo dhalinyarada waddanka joogta waxaan kula talin lahaa inay abuuraan shaqo iyagoo gaara, business u gaara ay samaystaan, haba yaraado, ama YouTube-ka ka shaqaystaan, ama social media ha ka shaqaystaan, ama business iyo meherad ha samaystaan, ama online ha ku shaqaystaan. saddexda habba way u shaqaysan karaan. midda ugu muhiimsan waa midda la xidhiidha online-ka. online-kana laba siyood ayaa looga shaqaystaa. mararka qaar waxaad samayn kartaa inaad ganacsigaaga iyo alaabahaaga aad online-ka kusoo bandhigto oo aad halkaa ku iibsado adoo gurigaaga jooga, isla markaana qofka macmiilka kuu yimaado oo sidaa uu wax kaaga iibsado. taa waad samayn karaysaa. choice-ka labaad ee aad samayn kartid aad leedahay waxa weeye in aad social media aad si toos ah aad lacag uga raadisid, muuqaala soo duubtid, amaba aad dad wax u xayeysiisid, kabacdina aad lacag sidaa kaga qaadatid, ama aad muuqaala kusoo gudbisid ama YouTube ama Facebook ama TikTok ama meelaha aad ku baahisid, kabacdina aad sidaa lacag ka heshid. labada Facebook waad ku shaqaysan karaysaa. haddaan isdul taagno tan social media intaan ogahay waxaan filayaa qofka waddanka jooga 3 platform ayaa wax laga faa'iidaa ama lacag laga shaqaystaa. way jiraan kuwo kale laakiin 3 platform ayay magaranaysaa, ama 3 application ayay dadku ugu badan yihiin oo ay ka shaqaystaan. mid waa YouTube-ka, Facebook-ka iyo TikTok-ta. 3 platform ee aan soo sheegnay midkaans leeyahay wuu ugu faa'iido badan yahay ama qofku dakhli fara badan ayuu ka heli karaa. number 1 waa page inaad samaysatid. haddaad Facebook page aad leedahay, siyaabo fara badan ayaad ugu shaqaysan karaysaa inaad ganacsigaaga aad ku baahisid oo aad ku promote garaysid oo dad fara badan ay wax ka iibsadaan, inaad dadka wax ugu xayeysiisid oo aad dadka alaabaha iyo ganacsiyada aad ugu xayeysiisid, sidaana aad lacag kaga samaysid, iyo inaad muuqaalo soo baahisid, kabacdina muuqaalada daawashada aad lacag ka heshid. 3 nooc ayaad uga shaqaysan karaysaa. YouTube-ka siyaabo fara badan ayaan odhan karaa uu kaga fiican yahay xagga xayeysiinta ama isticmaalka. Facebook aad baa lagu fara badan yahay, muuqaalo fara badan haddaad soo gelisid si yar fudud ayaa loo daawanaya. maanta YouTube-ka wax maraya 10,000 subscribers, laakiin haddii aan page isticmaal lahaa wax laga yaabaa inaan 100,000 oo followers aan haysan lahaa iyo 100,000 oo daawasho. marka sababtaas ayuu mar walba page-ku uga fiican yahay YouTube-ka. oo Soomaalidu aad bay jecel yihiin ganacsigooda loogu xayeysiiyo, amaba ma garanaysaa dhinaca CPM-ka YouTube haddii la eego, iyo Facebook-ka wax faa'iido badan ama dakhli badan. Facebook ayaa lacag badan oo xitaa shirkadaha markay lacag ku bixinayaan 100,000 daawasho Facebook inta lagu helo iyo 100,000 daawasho YouTube inta lagu helo, waxa aad u badan inta Facebook laga helo ayaa aad uga fara badan inta YouTube laga faa'iido. marka waxaan kugula talin lahaa haddaad Facebook samaysan karayso inaad Facebook page samaysato, second inaad YouTube samaysato, haddii kale aad TikTok samaysato. waayo TikTok-ta live-ka lacag fara badan ayaa laga sameeyaa, inkastoo ay xagga muuqaal daawashada iyo xayeysiinta iyo waxyaalaha lacagta lagu helaa ay iska kooban yihiin oo dameer uu furan yahay dhinaca lacagta, laakiin xagga live-ka ayaa lacag fara badan laga sameeyaa. marka dhalinyarada maanta 2022 waxaan kula talin lahaa inay ganacsi gaar ay u leeyihiin samaystaan ee iska daayaan inay CV qortaan oo ay shirkadaha iyo meheradaha dadka ay leeyihiin ay ka daba wareegaan, isla markaana ay shaqo weydiistaan oo runtiina xilligii la doono laga eriyo, xuquuqna aanad lahayn, xilligii la doono shaqada dibadda laga dhigayo. intaas ayaan kula talin lahaa. daawadeen muuqaalka quruxda badnaa ee idinkaga imaanaya Mansoor Hotel. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. channelka haddaad ku cusubtihiin subscribe saara,
aad iyo aad baa mahadsantihiin haddii kalena muuqaalka la garee dhammaantiin waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu